kulanti wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn Soomaalida oo ay ka mid yihiin Villa Soomaaliya oo walaac xoogan ka muujinaysa wada hadalka labaad ee lala yeelanayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madax Soomaali ah oo aan heshiis ahayn oo isugu tagaya magaalada Djibouti gaar ahaan Carta halkaas oo lagu soo unkay Jamhuuriyaddii saddexaad waxaana la warinayaa in madaxda mucaaradka iyo kuwa muxaafidka guud ahaantood iyagoon heshiis siyaasadeed ahayn ay tagayaan halkaasi sidoo kale dagaal beeleed ayaa ka socda deegaanada gobolka Galgaduud ama xuduudda labada maamul ee deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale maamulka Galmudug qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idinku haynaa ee soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibadana la sii wadaagtaan qaybta hoose ee faladana aragtidiina nagula wadaagtaan waxaynu ku bilaabaynaa walaaca Villa Soomaaliya ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Soomaaliya ayaa inta aanan la gaarin 15 bisha November ee soo aadan waxa la filayaa in uu tago magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah dowlad goboleedka Jubbaland halkaas waxa uu u tagayaa in wada hadal labaad uu la galo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo maalmihii la soo dhaafay wada hadal dhinacyo kala duwan ay kula yeelanayeen gudaha magaaladaas kuwaas oo ka kala socda dowladaha Itoobiya iyo Kenya waxa la warinayaa saraakiil sirdoon oo dhinaca Kenya iyo Itoobiya ka yimid ay tageen magaalada Kismaayo halkaas oo Axmed Madoobe ay kula hadleen sidoo kalena loo sheegay ujeedka ugu weyn ee heshiiskan ay u doonayaan labadaas dowladood ay tahay inuu halkaas muddo sii joogo sidoo kalena kala shaqeeyo danaha gaarka ah ee Soomaaliya ay ka leeyihiin labadan dowladood madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Kismaayo safar ku tagay iyadoo horay warqado waaran ah oo waliba soo qabasho ah la isugu kala diray labada dhinac oo ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay maxkamadda Kismaayo warqad waaran ah u soo jirtay iyo sidoo kale maxkamadda gobolka Banaadir oo warqad waaran ah oo soo qabasho ah ay u jirtay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Jubbaland oo ay ku eedeysay arrimo dhowr ah ilaa iyo hadda ma jirto meel lagu kala naqday warqadahaas waxaana sidoo kale jira doodo la xiriira kulankii koowaad ee dhexmaray dhinacyadan oo fashil ku soo dhamaaday iyo kulanka labaad iyo rajada ugu weyn ee Villa Soomaaliya ay ka qabto mar kale in wada hadalkan uu guuleysto dhinacyo kala duwan oo ka agdhow xafiisyada Kismaayo iyo sidoo kale Muqdisho ayaa warinaya in dhinacyadan aragtiyo kala duwan ay ka kala qabaan qodobka ugu weyn ee ah arrimaha doorashooyinkan kol hore Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uu qayb ka ahaa golihii waa la oran jiray wada tashiga qaranka oo Muqdisho shirar kala duwan ku yeeli jiray 6 bilood mar laakiin kulankii ugu dambeeyay ee uu ka baxay Axmed Madoobe waxa uu ku laabtay Kismaayo isaga oo go'aan adag qaatay kaasi oo ah inuu qabto doorasho dadban oo ugu dambeyn uu isagu ku soo baxay sanadkii 2024 oo ay doorashadan dhacday kadib waxa ka dambeeyay khilaaf adag oo dhexmaray dowladda dhexe ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ilaa raas Kaambooni ciidan dowladeed la geeyo ugu dambeynna wixii dhacay dadka Soomaaliyeed ay ku tilmaameen wax laga baaqsan karay hadda kulamadan soo aadan Villa Soomaaliya waxa la sheegayaa in ay wadato qodob xasaasi ah oo aanan la ogeyn waxa Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ka dhihi doono kaasi oo ah muddo kororsi 2 sano ah in la siiyo oo aqoonsi ah Axmed Madoobe taasi oo ka bilaabanaysa waagi uu ka baxay shirkii ka socday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana aaday magaalada Kismaayo Axmed Madoobe ayaana su'aashaasi jawaabteedu ay hortaala iyadoo aanan la ogeyn waxa jawaabta uu ku siin doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madoobe xilligan waxa uu haystaa muddo ku siman 5 sanadood oo baarlamaanku uu siiyay sidoo kalena muddaxileedkiisu uu ku ogyahay haddii laga qabto doorashadii la doortay muddo 4 sano iyo xoogaa ah ayaa u harsan iyadoona markii laga soo bilaabo muddaxileedka ama waagi uu ka baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka ee Muqdisho iyo sidoo kale xilligan ay dowladda federaalka Soomaaliya muddadaas 2 sano ah ay isugu dheelatirayso taasi oo ugu yaraanba 1 sano oo kamid ah ay ka baxday muddada u harsan ay 1 sano tahay taasi oo ay dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Villa Soomaaliya u aragto in doorashooyinka lagu soo gabagabeeyo ee qof iyo cod waxaan ku soo kordhisay saaxiibayaal barnaamijyada wararkana dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa markana aynu aadno magaalada Djibouti halkaas waxa ku qulqulaya wufuud kala duwan oo Soomaaliyeed waxaana ay qayb ka yihiin siyaasiyiinta ka qayb galaya shirka 25 sano guuradii ka soo wareegatay xilligii dowladda federaalka Soomaaliya ay federaal qaadatay oo waliba halkii laga yiri dadka Soomaaliyeed ma sinno waxa sidoo kalena ay ahayd meeshii laga soo qaaday waxa hadda Soomaalidu dhexdooda yaala ee qabiilka waxa Carta isugu tagaya madax kala duwan oo Soomaaliyeed 2000 ayay ahayd kadib markii Jamhuuriyaddii saddexaad halkaas lagu soo dhisay xubnaha ka qayb galaya waxa ugu horeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis siyaasadeed aanan ka wadin mucaaradkiisa dalka
waxaa halkaas ay ku kulmayaan madaxda Soomaaliyeed iyaga oo kala jeeda sidoo kalena cuqdad xoogan isugu qaba dhinaca siyaasadana aanan heshiis ku ahayn doorashooyinka dalka oo la filayo inay dhacaan 15 May iyo wixii ka dambeeya ayaa xilligan dooda ugu adag iyo khilaafka ugu adag uu yahay midda ay ka taagan tahay laakiin ma jirto ilaa iyo hadda dalab rasmi ah oo madaxweynaha federaalka Soomaaliya uu ka haysto xubnaha mucaaradka iyo dalab kale oo mucaaradku ay ka haystaan madaxweynaha Soomaaliya labadoodaba waa laba garab oo barartamaya sidoo kalena tartan adag ugu jira sii haynta kursigan iyo ka tuuridda kursigan midkood taasi oo suuragal ka dhigan karta in dalka mar kale uu ku laabto xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo waliba madaxweyneedkiisu gabagabo uu noqday sidoo kalena uu qaatay muddo kororsi 2 sano ah laakiin ugu dambeyn ay u shaqeyn weysay waxa sidoo kale jira in madaxdan ay siyaasiyiin wehlinayaan kuwaas oo isugu jira xildhibaano ka tirsan golaha shacabka kuwa aqalka sare golaha wasiirada qaarkood oo iyagana ka mid ah kuwa ka qayb galaya shirkan oo ka dhacaya magaalada Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhankiisa wadankaas muddo ku siman ilaa iyo 10 sano haysta ayaa ka qayb galaya shirkan oo isagu keenay sidoo kalena laga soo unkay heerkan federaalka oo ay dadka Soomaaliyeed xilla heer ay gaarsiiyeen inay qabiil u dagaalamaan isugu dilaan dalkii Soomaaliyeedna uu ka dagil yahay arrimo qabiil madaxdan Soomaaliyeed gaar ahaan mucaaradka iyo muxaafadka oo waliba ay kala hogaaminayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca garabka dawladda ah iyo sidoo kale garabka mucaaradka oo uu hogaamin doono madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa isu arkaya wajiga koobaad ee shirkan ka furmaya magaalada Carta halkaas oo siyaabooyin kala duwan ay u gaarayaan saacadihii la soo dhaafay xubno kala duwan oo siyaasiyiin ah wufuud ku casuuna ayaa maanta ka dhaqaaqay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kuwaas oo durba sii gaaray gudaha magaalada Djibouti waxaana halkaas ay ka bilaabeen kulamo duceedyo ay la qaadanayaan madaxda wadanka Djibouti oo ay ugu horeeyaan wasiirada xildhibaanada qaar iyo sidoo kale xubnaha arrimaha dibadda u qaabilsan dawladda Djibouti markii uu soo dhamaado sanad guuradan 25aad ee halkaasi ka dhacaysa waxa la filayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle in wada hadal uu la yeesho garabka mucaaradka iyo sidoo kale garabka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halkaas oo iyagana kulamo gaar ah ay ku wada qaadan doonaan kuwa oo dhammaantood looga hadli doono xaalka Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka in laga heshiiyo Djibouti ayaa xilligan noqonaysa wadamada mid kamid ah wadamada dhexdhexaadinta markaasi u taagan ee mucaaradka iyo muxaafadka aynu markaana aadno dhinaca dagaal beeleedyo maalmihii la soo dhaafay xiisadooda ay ka taagnaayeen deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale maamulka Galmudug laakiin markii dambe maanta uu dib u qarxay wararkan ka helayno xuduudda labada maamul ee deegaanka Soomaalida iyo maamulka Galmudug ayaa ku soo waramaya in halkaas uu ka bilowday dagaal xoogan oo u dhaxeeya beelo ka soo kala jeeda Guriceel iyo sidoo kale Balambal halka wararka qaarna ay sheegayaan in dagaalka dadka uu dhaxeeyo qaybtood ay ka soo jeedaan dhinaca deegaanka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud ilaa ay haddase xog rasmi ah laga helin dagaalkan waxaasi wararku ay sheegayaan in la isku adeegsaday hub leh noocyo kala duwan qasare kala duwan oo ka dhashay ilo aanan lagu kalsoonaan karin ayaa xaqiijiyay in dagaalka durba ay ku geeriyoodeen 3 ruux oo dhinacyadii dagaalamaya kuwaas oo deegaan ahaan deegaanadii aan soo xusnay ka soo kala jeeda waxa ka horeeyay dagaalkan dilal saacadihii la soo dhaafay ka kala dhacay halka lagu magacaabo Balikoraale oo hoostaga qabalaha Garasle oo gobolka Qorraxi ka tirsan oo aabe iyo wiilkiis maleeshiyad hubaysan ay ku dileen iyo sidoo kale habeennimadii xalay oo deegaan lagu magacaabo Mareere oo isagana Balambal hoostaga oo gobolka Galgaduud ka tirsan 2 dhalinyaro ah lagu dilay kuwaas oo la sheegay in ay markaasi maleeshiyadkan ugu aareen kuwa iyagana dadka looga dilay dhinaca quburaha ama aan iraade halka lagu magacaabo qabalaha Garasle ee deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Qorraxi dagaal xoogan oo u dhaxeeya dhinacyadan ayaana ka bilowday xuduudda labada gobol ee Galgaduud iyo Qorraxi taasi oo hadda la soo warinayo in qasaraha ka dhashay inta la og yahay oo laakiin aan la xaqiijin karin 3 ruux ay tahay halka dhaawacyo kale ay jiraan kuwaas oo loo qaaday xarumo caafimaad oo ku yaala dhinaca deegaanka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud dhawaqa rasaasta ayaa dadka deegaanku ay sheegeen in qaybo badan ay ka maqlayeen kadib markii uu dagaalka bilowday ilaa iyo haddana ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Galgaduud iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo qabalaha Garasle ama gobolka Qorraxi kuwaas oo dhammaantood beelaha dagaalamaya ay ka soo kala jeedaan saacadihii la soo dhaafay ayaa xiisad ay ka taagneed inta u dhaxaysa Qoroflo ama Qorofo halka lagu magacaabo iyo Karin iyo wadada xiriirisa magaalada Boosaaso ee gobolka Bari
waxaa sidoo kale jira ciidan tirabeel ah oo ay Puntland ku daabushay dhinaca deegaanadaas maadaama maalinimadii shalay shaqaaqo ka dhalatay joojinta qaad la joojiyay ay sameeyeen ciidamo taabacsan qaar ka mid ah ganacsatadii maamulkaasi Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ku sugnayd ee dhawaan qaadka laga joojiyay xaaladda ayaa hadda la sheegayaa inay ka duwan tahay sidii hore mar walbana waxaa laga cabsi qabay in halkaas iska hor imaad kale uu ku dhaxmaro dhaawacyo ayaa jiray iska hor imaadkii shalay dhacay ee dhinacyadan u dhaxeeyay gudaana saaxiibayaal wayeegantaas urarka Soomaalida kuwada ugu waaweyn waxaan mar kale idinka codsanayaa haddii aad ila dhamaadkana la soo gaartay inaad saaxiibadiina la sii wadaagtaan qaybta hoose ee faladana aragtidiina nagula wadaagtaan ma sinidin